بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ugu horeyn dhamaan ummadda ay Soomaaliland shacabweynaha meel kasta joogan aad iyo aad baan u salaamaya. maanta waxaan doonayaa shirkeygan jiraayad u qabtay inaan kaga hadlo dhowr qodob oo yar oo magaranaysaay ayaamahan dambe meediyaha ku soo noqonayay. shirkeygii hore waxaan kaga hadlay qodobo magaranaysaay dib u dhaca deegaanada aan ka soo jeedo haysta 25 magaranaysaay jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay dib u dhacay ku yimid. waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo dhowr qodob waxa kamid ah iskuulkii Sheekh Ali Ismaan Riis oo garanaysaan oo la dhisay 1952 dhistayna dawladdii Soomaaliya oo ogtihiin inuu xaafadda Gaalibaax iskuulka Qoriya ku madaystay yahay keligii ka dhisan inagoo intaaba oo iskuulkaasina dhanka kale cilmigu faa'iidadu leeyahay waa garanaysaan. ilaahay quraankiisu wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alladheena ya'lamuuna wal ladheena la ya'lamuun ma ismiyihiin dadka cilmiga leh iyo kuwan cilmiga lahayn. cilmigu faa'iidadu leeyahay waan garanaynaa inuu jahliguna dhulaam yahay cilmiguna nuur yahay waan garanaynaa. ardayda ka baxday iskuulka amnihiisa la daaqayo oo qaarna caalamka tageen qaarna dalka macallimiin ka yihiin oo ay dhigaan meel kalena ay joogaan ina maalinta dawladda maanta ay dawladii kulmiyees waqtigeedu si gabaabsiga yahay inay tiraa maanta iskuulkaasaan campaign gareyn u iibinayna oo musabix lagu campaign gareynay ceeb weyn weeye wax aqliga gali karana ma wax suurto gali karana ma waxaan yeeli doonana ma ka deegaan iyo ka bulshahan waxaan dawladda u soo jeedin lahaa inay ka waantoobaan dhul boobka iyo goobaha waxbarasho ay doonayeen in campaign ka iibsadaan. waan ogahay dhalinyaro yaroo musabix adeeru yahay ayaa kula jira oo ugu horeeya maayirka caasimadda ugu horeeya ayaa dabada ka riixaya in maanta la yiraaho iskuulkii Riis baa loo iibinayaa campaign-ka musabix wax aqliga gali kara ma wax suurto galana ma waxaan yeeli doonana ma waxaan soo jeedin lahaa dawladda on talo ugu soo jeedin lahaa haddii doonayaan inay balad ka dhacdo xaafadda oo xumaan iyo magaranaysaay doonayaan kaalayaan leh annaga waana garanaysaan xiriya dawladda maalin weerarna wala la yaqaanay kaalay baan ku leeyahay Cabdiraxmaan Sulteelko kaalay sidaadii baad magaranaysaay adoo dhiigu ka deeyay carri doontaa ma leeyahay hadaad ugu soo dhawaato waxay ay la yeeli karaan maaha hal waxaan kala aan inta ku dari lahaa qoladan isku xaafadda nahay degmadiisa wanaagii cadaadii campaign-ka nacaska ka bilowday waxaan leeyahay maalintii la idin baahnaa xanuunka deegaanka iyo haraadka lagu dhimanayay xagee joogtay waa nageedi ka weynay dawladda ka tirsanteena hor yaacaysaan war kiniin iyo biyo iyo dadkaas waxay cunaan ka soo qaada wadikii gaari biyo ka soo qaadi kari waay maalinta halkii aad dhigteen deegaankaas idkiya halkii aad dhigteen ayuu ka yahay wax suurto goobi karana ma maalintan caadiga ahay noolayna waan ku imanay maalintii aan sii dhimanayna afkan ka qarsanaya ayo gurigeygan soo xidhanay wax suurto gali kara maaha waa deeynba tacabkee tugay kaamaali raggii waraabinayay dhabarka ugu jabay ayuun baa maantana campaign u tagi kara oo ololayn kara xisbina uga ololayn kara. dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin inaasaan doonayay inaan ka hadlo waxaan leeyahay mar labaad ku celinay iskuulka Riis carruurtu wax noogu dhiganayso hal laga waanto wax la yeeli kara ma aqliga gali kara ma ka daawantoodo baan la dawladdu aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.